wafdi ballaaran oo hogaaminaya Islaam Bashiir Islaam Cabdulle Islaam Faarax oo ka soo kicitay magaalada Gaalkacyo ayaa maanta si diiran lagu soo dhaweeyay degmada Buurtile ee gobolka Nugaal. Soo dhaweyntoodii waxaa ka qayb qaatay maamulka degmada, nabadoono, dhalinyaro. Soo dhaweyn kadib waxaa islaamka waftigiisa la socday loo soo gudbiyay hoyga uu ka degan yahay gudaha degmada Buurtile. Ugu horeyntii waxaa ka warbixiyay ujeedada safarka Islaam Bashiir Islaam Cabdulle iyo waftigiisa. Gudoomiyaha degmada Buurtile Maxamed Maxamuud Ahmed wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay inay soo dhaweeyaan Islaam Bashiir Islaam Cabdulle, sheeganay in la wajihi doono wajiga labaad ee nabadeynta casuumaadna ay ka heleen Garaajama Garaad Cali. wafti uu hogaaminayo Islaam Bashiir Islaam Cabdulle Islaam Faarax waxaa weheliyay isma kale ka mid yihiin Imaan Cabdulhaab Maxamuud iyo Amiir Maxamuud Yuusuf, nabadoono, samadoono, ganacsato. runtii aad baan ugu faraxsanahay waftiga uu hogaaminayo Islaam Bashiir inay soo gaaraan degmada Buurtile. waxaa jiray safar aanu ka sii ambaqaadi doono degmada Buurtile, waanu ku tagayno deegaanka Saxdheer maadaama halkaasi colaadii dhacday waagi dhaweyd lagu soo aftaray deegaanka Meegagle kulankii koowaad. waxaa hadda la gudagalayaa fayskii labaad ee nabadeynta isdhexgalka dadkii walaalaha ee muddo kala xanibnaa sidii isku dhexgeli lahaayeen ay u noqon lahaayeen walaalo gacmaha is haysta sidii soo jireenta ahayd. runtii kulankaasi saas ku saabsan yahay casuumaad aanu ka helnay Garaajama Garaad Cali. runtii waan aad baan ugu faraxsanahay inaanu waftigaasi aanu ka mid noqono. ugu dambeyntii nabadoonayaashii dhalaal dhankiisa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in maanta ay soo dhaweeyaan Islaam Bashiir Islaam Cabdulle. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan soo dhaweynaynaa waftiga ka yimid gobolka Mudug oo uu hogaaminayo Islaam Bashiir Islaam Cabdulle iyo ismada kale oo la socda. qorshaha iyaguna waxa weeye oo ismada iyo odayaasha iyo ganacsatada iyo waxgaradka guud ahaan loo socdo waa fayskii labaad oo nabadeyntii beelaha walaalaha ah oo colaadu ku dhexmaday meesha la yiraahdo Qorley iyo Meegagle iyo Hawdka Cagaare. waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in laga gaaro heshiis dhab ah iyo guul la taaban karo. waxaan hadda ku wajahanahay safarka iyagu gobolka Mudug oo ismada ka soo bilowday ilaa Nugaal. waxaan u soconaa meesha la Saxdheer. waxaan leenahay dadka labada beelood ka soo jeeda iyo guud ahaan dadka la deganba nabad baa naas la nuugale. waa in la qaataa arrimaha lagu hawlan yahay oo nabadeynta ah. safarka Islaam Bashiir Islaam Cabdulle Islaam Faarax ayaa wuxuu daaranaa sidii loo ambaqaadi lahaa nabad waarta oo dhexmarta beelaha walaalaha ah ee wada degan deegaanka Cagaare iyo Qorley. Mawlid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC, degmada Buurtile.